laba mid waxay dagaalka inay nabad qaataan iyo saacada boqolka qof ee konton qof meel jooga qarankan maanta iska bixi karo qarankani afar iskaashi wala dumi kari waaye oo adogeedeen oo yab house laba sano jiray iyo shan iskaashi maanta cid iska celi kartaa ma jirto wala dhowraya dadkiisa dhimasho iyo dhiig baa ka laga wareegaya hadaad maqasheen ilaa iyo bari ilaa caare ma hadda qoniimo nagama wax ka naga tahay dadkiina iyo dhibku ku dheeraanin la idinka aqbali maayo idinka yeeli mayno inaan halka jooga yaa soo la soo hadli kari weynay ama se kacay kari weynay ama aan qaban kari weynay wax la idinka yeelay maaha lacagna ku bixin mayno ninka hawshiisa qabsan kari waaye lacag la ku siimay bari baa lacag la geeyaaba nasiib darro ku hadlay saadintu masiiba loo geeyaa masiibada ilaahay baryade dad masiiba jeceshiin masiiba qaybteena sida leeyahay boqolaal qof baa isdila dhibaato taala ma dhibaato loo geeyaa ma dhibaato ilaahay noo keenay leedii war ilaahay ka baqa waxa weeyaan waxaasi wax la suuraysan karo ama la aqbali karo maaha waxa bari la geeyay ee lagu shubaay waa wax danta Soomaaliland ka maarweeday oo madaxweyne kasto jooga ku qasbanaaday oo qaran ku qasbanaaday ilaa cigaal ilaa rayaale ilaa siiraye ilaa musabix waa wax danay biday wax la jecel yahay ma haday maanta sideena u dagaan waxa cid kuma shubtay lacag cid la ku dhacayso amni ku dhamaanaysa oo aan waliba horumar u taray inankoodii maanta habsaamay ilmahoogi baa inankeentooda habsaamay nabadgelyo darro ku habsaameen siyaasada kale ku habsaameen waxa ku habsaameen laba daraaco ku habsaameen tay Soomaaliland inta ilaahay boolaanay ku habsaameen wargo ducaynaa iyagoo dhibaato haysta waa dhibta horumarku gaan leeyahay waray reer awdadanahay waxa maanta ku dhisanay wixii resource ay keenaysa hay'ada caalamiga keenayeen wuxuu ku horeeyaa galbeed ku horeeyay haday iskuul tahay haday caafimaad tahay haday biyo tahay ila tuulooyinkiina ma biyo toosh kala gabeeranayaan warma sida doonaysa idinka dhib maxay tahay ugu biyo xawaa dilaan shalay soo xifray waxa la soo furay boon waxa la soo furay xariirad waxa leeyahay waxa tuulaad gobolka awdal jiray meel aan biyo lahayn maanta biyo nadiif laga cadbeeyo ma jiro la idin lama qabo waxa weeyaan arinta nabadgelyada idinka bari maayo wixii taliya tusaalana waa laga qaadanaya odayaasha maanta runtii deegaanka maartay degmada Buuro kamida qaybta bariga iyaga aad iyo aad baan runtii hambalyeynaya nabadda horta la sheego inaad fahamtaan weeyaan nabaddu bariyo kuma timaado hadii walaalku gal badiyo nabaddu ima weydo waxa ku imanaysaa xoog ku imanaysaa nabaddu adduunyada waxa loo sameystay waxa adduunyada kharash loo geeyay ciidan loo geliyaa nabaddu markay ka fursan weydo wanaag iyo talada iyo tasliixda la badiyo iyo wadahaalka hadii dhaaf weydo khatar ninku hadda uu gaaro markuu is gaaro inuu cunaha iska xidho xariga waa gacanta loo tagaya marka waxa leeyahay duqeyda galbeedka waxa weeyaan wixii macquul lama diidayo laakiin waxa idinka laga rabaa markaad hawsha dhameysaan idinkida soo qabsataan waxa rabtiin weydiiyanaga laakiin adoo inaka anagu nahay ee la sharfiyay ee tolku sharfiyay ee maartay wixii sida la sheegay على مساركيسي شرفتيسي أنا مدحونا قرنا كي شرفيه كوكو همان ديارنا كسر دقي إمامات ضيا كوفية تصاص عنها وحس ده لو شرفيه ونا قرمري وهذا بيدل مركي هربكي وصور دواتي عروتي كسر حراتي إنه كادي دي إنه عفس كقاطو ضد كيس كسر نقو سلطان يعغاش كلامه وحلاها تقف كبلادك hadduu soo taago qof madaxa waa si goynaa adu kama qaban kartid hadduu isagu soo taago oo qofku wanaagii diido de waxay tagaysaa in laga badbaadiyo inta kale laga badbaadiyo 300 kun oo buurama ka dhageysan mayno in marteen lagu dul goolaftamo oo nabadgelyo laga abuuro oo dadka hadii in nolol tahay iyo hadii in wax noo tiraso hay'ada tahayba in ka dareeraan aqbal mayno mana rumaysan isuguna mayno waxbaynu wada leenahay isku dambaan nahay
doontan iyo marteen Soomaaliland iyo gobolka wadana wadeenahay nabadgelyaduna waa sala sheegaanu tafaasiisheeda iyo qiimaha ay leedahay iyo maanta horumarka inoo soo socda waxa dhameeyay gudoomiye ku-xigeenka inay warway laakiin waxa ay sheegayaan golaha wasiirada wax laga baasgareeyay odayaalow waad ka yar idinku ma dhaqanka waxaad moodaa dhaqanka Soomaaliya dhamaantii waad yar dhaafteen intii aad lahaydeen gaar ahaan salaadiinta ma uqaash gaar ahaan salaadiinta Soomaaliland xadkay lahaay way dhaafeen dulqaadashada ma loo dulqaadan nin dambe oo qarankan provocation ka sameeya qofka waxa loo ogol yahay inuu qaranka wixii toosin u tilmaamo inuu maartay soo xitaa inkastoo dhaqanku inuu mucaaradda xisbiyada ku shaqo lahayn haddana hadduu wax qaloo arko toosin lagu leeyahay laakiin lagama aqbalay maanta laga bilaabo ninka soo joogsada oo fidmo abuur iyo afqabiyaaladeed iyo waa dagaalamaya damo yiraahdo lagama aqbalayo imika bayna isku soo warwareegin ninkii maanta afka qaadiyo iyo horin iyo colaad afka kaga hadlay mi afka lama gacan dawladdu go'aan bay ka qaatay bariya galbeed bulshada joogo bariya galbeed waxa weeye sababtoo halka ku soconay de waxa nabadii iyo wixii Soomaaliland lagu majeeranayay afkeenii baa dibad mooday inuu wax ka fogeeyay saadirteed maanta looma dul qaadanayo walaa wariye walaa madax dhaqameed cidii dhaafsan xuduud soo dhaafta looma dul qaaday laakiin qofku waxa loo ogol yahay tilmaam iyo talo iyo tusaale inuu bixiyo laakiin waan dagaalamaya dambe ya saxaafadana waa wada hor joogtaan aruur soo koreysatay wax laga rabaa dadkana inaad inta wanaagsan faafisaan laakiin say inta xun iyo kicinta wadanka aad kicinaysaan ay ka aqbali maayo waxaan soo gabagabeynayaa waxaanu gacmaha isku qabsanaynaa inaan dalkeena iyo dadkeena degmadeena aynu dejino weeyaan hoosna isku daadegaynaa shiraka waanu badinaynaa kaligiin lamaha aqooyaankii waan la shiraynaa haweenka la shiraynaa dhalinyarta la shiraynaa waxa weeyaan dhageysiga waa dhageysanaa waliba waan dhageysan jirnay intaas sare soo dhageysanayna inaan wixii aad ku tabanayseena marnay nimaanaan oranin tabashadaas ma jirto maan inta aynu wada joognay sanadkii 9 bay dhamaadeen madaxweyne ku-xigeen ahaan reer booramo waa maraa wadalow wali markii maan nidhi waxba aad sheegaysi waa beentin maan nidhi waxa weeyaan laakiin waqti wuxuu baleeyahay de wixii alla maanta dhamaado buu dhamaanaya laakiin waxa weeyaan waxay naga dhiman waxaan haysanaa ka badan intaan haysanayno ilaashano annagu ka xukuumad ahaan wixii idinka xoog roon ee nabadgelyo xumeynaya dibna markaysiiday de gacan bira ku qabanayna aad iyo aad mahadsantiin wixii muxuu ahaa mana kala tegino saa sheegteen la isku dhaadhaco waynu wada joogaynaa ma kala tegino haddana wali yar joogaynaa 2 iyo 3 ma kala tegino ilaa aynu gunta taabanayno oo aynu helayno inaan ku soo celino magaaladeena iyo gobolkeena wixii lagu yaqaanay nabadiisa lagu yaqaanay ilaa ku soo celino aad